ururka afraad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ayaa howlgal ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kusimaha taliyaha ururka ahna abaanduulaha ururka afraad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab laba xidigle Maxamed Cabduqaadir Cali oo hogaaminayay howlgalka ayaa sheegay in ujeedka howlgalku uu ahaa xaqiijinta ammaanka deegaanada Dudumey Fuulay Beledweyne oo dhammaantood hoos taga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkan lagu xaqiijinayo ammaanka ayaa intuu socday ciidamadu waxay soo qabteen horjoogihii nabadiidka u qaabilsanaa dhinaca sakawaadka iyadoo shacabka ku dhaqan deegaanadana ay dhibaato ku qabeen nabadiidka argagixisada al-shabaab howlgalkan ayaa jab weyn ku ah nabadiidka al-shabaab maadaama ay goobahan ka heli jireen dhaqaale fara badan oo ay ka baadaan dadka shacabka howlgalkan ay sameeyeen ururka afraad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ayaa qayb ka ah howlgallada guud ee lagu baacsanayo nabadiidka al-shabaab ee ka socda qayb ka mid ah dalkeena Soomaaliya